kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka xaqiiqsan media qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaan warkayagana waxaa ka mid ah xukuumadda Kheyre oo qaaday qorshe ka farxiyay xisbiyada siyaasadeed ee dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah xildhibaano war ka soo saaray talaabada ay wasiirada ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka iyo axsaabta siyaasadda ganacsato xiriir la leh al-shabaab aadana deegaanada ay gacanta ku hayaan oo digniin culus loo diray sidoo kale daawadayaal waxaad maqli doontaan warbixin dheer oo ka hadlaysa wasiirada Kheyre ee iscasilay mahayiraacnimo ayay diideen mise waa ay wada shaqayn waayeen akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxaa ka mid ah ciidamada Israa'iil oo weerar ku qaaday magaalada Gaza intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkaroona markana daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre ayaa qaaday qorshe ka farxiyay xisbiyada siyaasadeed ee dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid aan caadi ahayn waxaana ay ku ansixiyeen sharciyo muhiim ah oo laga sugayay waqti dheer kulankan oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qaatay waqti dheer iyadoo ugu dambeyntii lagu meelmariyay sharciga doorashooyinka iyo kan axsaabta dalka muddooyinkii dambe siyaasiyiin fara badan ayaa ku dhaliilaya dowladda federaalka inaysan diyaarin sharciyadan iyadoo ay dowladda ay shaqaynayso muddo 2 sano ah doornimadii maanta ayaa xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka iyo sharciyada axsaabta siyaasadda oo dib u eegis lagu sameeyay waxaana talaabadaasi soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya dhanka kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saareen talaabada ay wasiirada ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka iyo axsaabta siyaasadda xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay ansixinta sharcigaasi golaha wasiirada Soomaaliya waxaana uu sheegay in dhawaan loo gudbin doono xildhibaanada golaha shacab waa talaabo mudan soo dhaweyn in golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta ay ansixiyeen sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta siyaasadda oo dib u eegis lagu sameeyay waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka iyadoo ay tahay in sharciga doorashooyinka uu yahay mid waafaqsan dastuurka dalka talaabadan maanta golaha wasiirada Soomaaliya ay ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka iyo kan axsaabta ayaa la sheegay inuu yahay mid looga hordhacayo shirka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada horaanta toddobaadka soo socda ay ku yeelan doonaan magaalada Garowe ganacsato xiriir la leh al-shabaab aadana deegaanada ay gacanta ku hayaan oo digniin culus loo diray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan Axmed Faal ayaa waxa uu digniin adag u diray ganacsatada ku nool magaalada Jowhar iyo deegaanada Hirshabeelle kuwaas oo uu sheegay inay aadaan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sheegay gudoomiye Axmed Faal in cid kasta oo kamid ah ganacsatada ku sugan magaalada Jowhar ay ogaadaan inay tagaan deegaanada al-shabaab ama u safra ee ku soo laabta magaalada ay talaabo adag ka qaadi doonaan isla markaana sharciga la horgeyn doono ciidamada amniga Hirshabeelle ayuu ku amray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan gacanta ku dhigaan cid kasta oo ay arkaan iyadoo aadaysa deegaanada ay maamulaan al-shabaab isagoona xusay in ciddii aada shabaab aysan u soo laaban doonin magaalada si kastaba ahaatee deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa gacanta ku haya dagaalyahano ka tirsan al-shabaab waxaana maxkamadaha halkaasi ay ku leeyihiin garsoor u doonto dadka shacabka dagaal ay ku lug leeyihiin ciidamada daacad u ah Mukhtaar Roobo oo ka dhacay gobolka Bokool ciidamada daacad u ah Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo u xiran dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa dagaal culus uu ku dhexmaray qaybo kamid ah gobolkaasi Bokool ciidamada daacad u ah Roobo oo loo yaqaan Caaro ayaa sheegay in dagaalku uu ka dhacay xaafadda Abay oo qiyaasii 18 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Xudur ilaa iyo hadda wax faahfaahin lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka labada dhinac ciidamada daacad u ah Mukhtaar Roobo ayaa ku urursan agagaarka magaalada Xudur waxaana weli la hirgelin qorshe la doonayay in lagu biiriyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya heshiiska ay ugu biirayeen ciidamada dowladda ayaa qayb ka ahaa kii dhexmaray dowladda iyo Roobo markii uu isku soo dhiibay dowladda hase yeeshee qorshahaas ayaa iminka u muuqda inuu fashilmay ciidamada taageersan Roobo ayaa la rumaysan yahay inay dib uga dideen dowladda wixii ka dambeeyay markii ay xiratay hogaamiyahoodii markana warbixin dheer oo ka hadlaysa wasiirada Kheyre ee iscasilay mahayin raacnimo ayay diideen mise wada shaqeyn ay waayeen
xukuumadda Soomaaliya oo hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa tan iyo markii la ansixiyay waxaa ku soo biiray wasiiro cusub kadib markii ay iscasileen wasiiro badan kuwa kalena xilka laga qaaday. inkastoo ay adag tahay in wasiiro uu ka tirsanaado xukuumadda ay kala aragti duwan yihiin ayaa haddana wasiiro ay ka mid yihiin Maryan Qaasim iyo Daahir Geele waxay ku dhiiradeen inay soo bandhigaan sida aysan ugu qanacsaneen qaar ka mid ah siyaasadaha xukuumadda ayna ku dhiiradaan inay iscasilaan. wasiir Daahir Maxamuud Goole oo u dambeeyay wasiiradii iska casilay xukuumadda Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in dowladda ay ku kala aragti duwanaadeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo mucaaradka uu sheegay inay tahay in la dhageysto haddii ay wax soo kordhinayaan. halka wasiir Maryan Qaasim ay isku casishay kadib markii ay sheegtay inaysan ku qanacsaneen qaabkii loo maareeyay dhaqaalihii la ururiyay xilligii qaraxii Soobe. walow laga yaabo in aragti kala duwanaanshaha qaarkood ay dadka iscasila qalad ay ku yeelan karaan, haddana sida aan ka aragnay dad kala duwan gaar ahaan wasiir Daahir iyo Maryan Qaasim waxaa muuqata in xukuumadda aysan lahayn aragti fog oo ay meel ula socoto. waxaa la wada leeyahay na aysan jirin wax koox ay tahay xukuumadda, sidaasi daraaddeedna ay adag tahay in dadka ka fikir duwan ay la jaan qaadaan. sidaasi waxaa ku dooday Ibraahim Bursaliid oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya. xukuumadda hadda jirta ayaa tan iyo markii la ansixiyay waxaa siyaabo kala duwan uga baxay wasiiro badan kuwaas oo qaar badan xilka laga qaaday halka kuwa kalena ay iscasileen. dadka qaar ee falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ku doodaya in arrimahan ay dhaawac weyn ay ku yihiin xukuumadda. xukuumadda Kheyre mar kale ma u baahan tahay kalsoonida baarlamaanka? xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa tan iyo markii la ansixiyay waxaa siyaabo kala duwan uga baxay wasiiro ka badan 10 kuwaas oo kala ah Daahir Geele, wasiirka warfaafinta Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda, Cabdi Faarax Juxe oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha, Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah madaxweynaha Koonfur Galbeed balse hore u soo noqday wasiirka tamarta iyo biyaha, Qadra Axmed Ducaale oo ahayd wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, Axmed Mursal oo hadda ah gudoomiyaha golaha shacabka horeyna u soo noqday wasiirka gaashaandhigga, Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirka waxbarashada, Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo allaha u naxariistee ahaa wasiirka dastuurka, Cabdirashiid Cabdilaahi Maxamed wasiirka gaashaandhigga iyo Cabdifataax Geeshe oo ahaa wasiirka howlaha guud. waxaa wasiirada ka wada horeeyay oo magaalada Muqdisho lagu toogtay Cabbaas Siraaji oo ahaa wasiirka howlaha guud ee xilligaasi. sharci anshaha xukuumadda ayay dad badan ay su'aalo geliyeen iyagoona ku andacoonaya in 2 meelood meel ka mid ah wasiirada uu baarlamaanka ansixiyay aysan iminka ka tirsaneen xukuumadda. waxaa su'aal la gelinayaa sharci ahaanshaha xukuumadda, arrintan oo aysan ku baraarugsaneen inta badan xildhibaanada golaha shacabka iyo siyaasiyiinta. ayuu Abukaati Sakariya sheegay in kuwa ay soo jeedinayaan lagu tilmaamo mucaarad iska hadlaya oo aan loo arkayn dad doonaya inay wax saxaan. cawaaqibka dhanka sharciga ayuu Abukaati Sakariya sheegay in intaasi ay keeni karto in talaabo walba oo ay xukuumadda qaado lagu tilmaamo sharci daro, dood sharcina halkaasi ay ka furmi karto, loona baahan yahay in dhinacyada siyaasadda iyo maxkamadda sare ay tilmaamaan arrintan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka Xaqiiqsan Media waa naga intaa. fadlan subscribe saar channelkan haddii aad ku cusub tahay, sidoo kale like iyo share-tana ha ka iloobin, qaybta hoosena inaad faaladaada noogu reebto waa noo muhiim. waana mahadsantiin daawadayaal.